الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. intaa ka bacdi ama bacd insha allah muxaadaradan kooban waxay ku saabsan tahay tarbiyatul awlaad. awlaadu sidaynu ognahay waa shay nimco ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyey dadkana ugu nimceeyey. waa siismo ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo, waa ubaxii iyo maaragtay quruxdii adduunka weeyaan. waa ziinatul xayaati dunyaa buu ilaahay ku tilmaamay. isla markaa haddana ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay awlaadu inay yihiin fitna. inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. awlaadiina, caruurtiina iyo maalkiinaba waa fitna iyo imtixaan. allah subxaana watacaala mar kalena wuxuu yidhi almaalu walbanuunu ziinatu lxayaati dunya. yani wiilasha iyo maalkaba waxa weeyaan quruxda adduunka ay ka mid yihiin wiilasha iyo caruurta iyo maalka iyo fardaha iyo wixii la mid ah. maadaama caruurta ay yihiin ilaahay subxaana watacaala waxa uu bixiyo, tarbiyadooduna aada iyo aada ayay muhiim u tahay. waana waajib marka waalidiinta inay tarbiyeeyaan ubadkooda. ilaahay subxaana watacaala aayad qur-aan ah alle wuxuu inoogu tilmaamay yahabu liman yashaau, ciduu doono alle wuxuu siiyaa inaathan gabdho, wayahabu liman yashaau dhukuur, ciduu doonana wiilal buu ilaahi subxaana watacaala uu siiyaa, aw yusawijuhum dhukraanan wa inaatha, ama ilaahi subxaana watacaala uu isugu daraa ciduu doono wiilal iyo gabdhaba uu isugu daraa. wayajcalu man yashaau caqiim, ciduu doono ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka dhigaa mid caqiima. markaas wayajcalu man yashaau caqiima, ciduu doonana ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka dhigaa mid madhalaysa oo aan dhalayn. suuradan markaa ama aayadan ilaahi subxaana watacaala suuratu shuuraa ilahay wuxuu inoo tilmaamay ciduu doono inuu ilaahay ubadka siiyo, ciduu doono inuu ilaahay subxaana watacaala uu siinayo wiilal keliya, ciduu doono ilaahay subxaana watacaala inuu siinayo gabdho keliya, ciduu doono ilaahay subxaana watacaala inuu isugu darayo wiilal iyo gabdhaba. qaarna ilaahay subxaana watacaala uu madhalays ka dhigay oo aan ubadba siinayn. afar baynu soo qaadanaynaa markaa tusaale. dadkana afar qaybood un bay noqonayaan. qof ilaahay subxaana watacaala gabdho keliya siiyey sida nebiyullaahi luut oo kale. nebi luut ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey gabdho keliya, wax wiila muu dhalin. nebi ibraahim calayhi salaam ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey wiilal keliya, wax gabadha muusan dhalin. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu siiyey wiilal iyo gabdhaba, labadiba uu isugu daray. nebi yaxya binu zakariya ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay caqiim iyo mid madhalaysa. marka dadkana saasun bay u qaybsamaan, afartaa qaybood ayay u qaybsamaan. nimco weeyaan caruurta. marka qofka ilaahay subxaana watacaala uu ubad siiyey, nimcadaas ilaahay uu siiyey waa inuu ku shukriyo oo ilaahay subxaana watacaala uu ku mahadiyo, isla markaasna tarbiyadii iyo kaalintii looga baahnaayo waajibkii alla saarayna uu markaas uu la yimaado. maadaama aynu tarbiyadda awlaada ka hadlayno insha allahu tacaala aada baynu usoo koobeynaa qodobo kooban oo qof wali maaragtay oo waalid ah looga baahan yahay inuu qabsado qodobadaas, isla markaana uu ku dhaqmo. waxaynu tilmaamaynaa marka u horeysa tarbiyada maxaa la yidhaahdaa. tarbiya waxaa la yidhaahdaa shayga in la gaadhsiiyo, shay in la kobciyo oo la koriyo oo la gaadhsiiyo shaygaa dhammaystirkiisa.
tarbiyada marka haddaynu ka hadlayna waxa weeye qofka yar oo soo koraya in lagu barbaariyo oo la koriyo oo la kobciyo caqligiisa, diintiisa, akhlaaqdiisa, fikirkiisa in la kobciyo. waxaa jira markaa qofka wax barbaarinaya sifaad looga baahan yahay. qofkaas ama waalidka ha noqdo ama mucallimka ha noqdo. sifaat almurabbi naajix, qofka wax barbaarinaya tilmaamaha looga baahan yahay ayaynu tilmaamayna. tilmaanta koobaad sifaadka asaasiga ama tilmaamaha asaasiga ah, tilmaanta koobaad oo looga baahan yahay qofka wax barbaarinaya waa dulqaadka, inuu yahay qof dulqaad leh oo wax u kaadinaya oo wax ka fiirsanaya. tilmaanta labaad inuu yahay qof turitaan leh oo u turaya qofku barbaarinayay, inuu u jilicsan yahay oo u naxariisanayo. alliin baa laga rabaa. liin waxa weeye inuu garabka u jilciyo iyo inuu u turo qofkii. tilmaanta saddexaad waxa weeye raxmad iyo naxariista, inuu qofka u turo qofka uu barbaarinayo, ilmaha uu barbaarinayo, hadduu macallin yahay, hadduu waalid yahay, ilmahaas inuu naxariis u hayo. oo shareecadeenna waxayna fartay in maaragtay xayawaanka loo naxariisto, caruurta loo naxariisto, maaragtay geela hadday tahay, ariga, bisadaa hadday tahay, yacni raxmad. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aada bay naxariistiis u badnayd. marka tilmaamahaasna waa tilmaamihii uu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam. marka inaan kaga dayano rasuulkeena tilmaamaha wanaagsan oo ah dulqaadka iyo turitaanka iyo garabka aynu u jilcino qofka aynu tarbeynayno, naxariista inaynu u naxariisano, qofkaas inuu ka fogaado carada, uu ka fogaado iyo xanaaqa qofka wax tarbeynaya. markuu wax tarbeynaya inuu qaato shayba shaygu ka fudud yahay oo shayba shaygu ka dhib badan yahay, ka culus yahay aanu qaadanin marka uu tarbeynayo. inuu u cadaalad sameeyo caruurta uu tarbeynayo ama ardayda uu tarbeynayo, inuu u cadaalad sameeyo. hadalka inuu yareeyo oo hadalka badan hadal ahaan ma buuxsho, hadalka inuu iska yareeyo, inuu noqdo ku dayasho wanaagsan. in markaa waalidka markaa waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu doorto xaas wanaagsan, inuu doorto oo ubadka yacni shareecadeenna islaamka ama diinteenna islaamka qofka intaan la tarbeeyin, qofkii isagaan dhalan baa sharcigeenu wuxuu leeyahay hala tarbeeyay. maxaa loogu tarbeynayaa? ikhtiyaar azawjati saalixa, ninku inuu doorto xaas wanaagsan. xaas wanaagsan inuu doorto iyagana waa laga maarmaan weeyaan oo waajib bay ku tahay. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, dumarka waxaa loo guursadaa 4 arrimood. 4ta arrimood waa maalkeeda iyo nasabkeeda iyo quruxdeeda iyo diinteeda. rasuulku markaa wuxuu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku guulaysataa qof diin leh. xadiid kale wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam, hadduu idin yimaado nin aada diintiisa iyo dhaqankiisa raalli ka tihiin, u guuriye. haddii aada u guurin weydaana fitno iyo fasaad weyn baa imanaya. marka shareecadeena marka hore waxaa ka bilowday ubadkiiba intaanu dhalanin inuu ninku doorto xaas wanaagsan, gabadhuna ay doorato nin wanaagsan. marka taasi tarbiyadii kaalin weyn bay ka qaadanaysaa. marka horeba hadduu qofku doonto naag akhlaaq xun, ilmahaagiina tarbiyada adaa ka hadlayay. hadday gabadhu marka horeba doorato nin akhlaaq xun, iyadaa tarbiyadii ka hadlaysa. marka ubadka saynu sheegnay waa nimco ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala. nimcadaasina shukri bay leedahay, waa inaynu ilaahay u shukrino ciddii ilaahay ubad siiyey. waa inaynu sidoo kale ogaano ubadku inay yihiin fitno iyo itixaan inay yihiin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna, caruurtiina iyo maalkiina waa fitno, yacni diinta idinka mashquulin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaaika hum lkhaasiruun. yacni dadkii ku mashquulay ubadkooda iyo maalkooda oo ka mashquulay cibaadadii iyo khayrkii iyo daacadii, kuwaas waa dadka khasaaray. saa darteed waxaa loo baahan yahay inuu qofka ubadkiisa iska jiro, yacni diintiisa iyo aakhiradiisa inaanay ku siijin oo meel xaaraana aanay kugu ridin oo halaag aanay ku horseedin. isla markaana waxaa loo baahan yahay inaad tarbiyeyso oo wanaajiso, adigoo ka taxadaraya inaad diintii iyo cibaadadiina kaga mashquusho, iyagana waajibkoodii inaad la timaado. rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam, kullukum raacin, mid kastoo idin ka mida waa mas-uul oo waa raaci oo waxbaa la raaciyey. mid kastana wixii la raaciyey waa la weydiinaya. saa darteed marka mas-uuliyadda waalidka saaran waxaa ka mid ah ubadkooda, caruurtaada iyo ubadkaaga mas-uuliyad iyo waajib baa kaa saaran. waajibkaana haddaad dayacdo ilaahi subxaana watacaala maalinta qiyaame uu kula xisaabtamaya waana ku weydiinaya. ilaahi subxaana watacaala aayad qur-aan waxa uu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. war dadkii mu'miniinta ahaayo oo ilaah iyo rasuulkaba rumeeyo, dadkii iimaanka laga helayo,
ubadkiina ka ilaaliya nafihiina iyo ubadkiinaba waxa ka ilaalisaa naartaasoo waxa lagu shidaya uu yahay dad iyo dhagaxaan uu yahay marka waxaa loo baahan yahay ubadkeena inaynu ka ilaalino sababkee naarta ku geli lahay iyo macaasida iyo dunuubta inaynu ka ilaalino isla markaana nafteenana aynu uga baqano naarta oo ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka magan galno asbaabteenu naarta ku geli lahayna aynu ka fogaano asbaabta naarta lagu gelay marka maxaa ka mid ah mas-uuliyaddiina dayacdo xaaraamtii macaasidii iyo waxyaabaha la midka ah asbaabbay kugu noqon marka waa waajib inaynu ubadkeena tarbiyeyno ilahay baana subxaanahu watacaala ina saaray waajibkaas haddii aada ilmihii tarbiyeyso faa-idatu waladi saalix waladkii saalixa ahaa faa-ido ayuu leeyahay faa-iidadaas waa maxay marka aada dhimato in qabriga ducadiisa ay kugu soo gaadhayso oo rasuulku calayhi salatu salam wuxuu noo sheegay qofku markuu dhinto camalkiisa inuu go-ayo ilaa 3 arrimood mooyaane 3 arrimood waxaa ka mid ahaa aw waladin saalixin yadcu lahu ilmo wanaagsan oo usoo duceeyay marka faa-iidadiisa nafci aakhiro iyo nafci adduun labadiiba waad ka helisaa ilmaha markaad tarbiyeyso oo adduunkana baarinimadiisa iyo wanaagiisa iyo khayrkiisa ayaad ku helaysaa aakhiro markaad dhimatana waxbuu kuu sadaqadaynayaa wuu kaasoo xajinayaa wuu kuu ducaynayaa khayr fara badan oo qabriga kugu gaaraya ama qiyaamadaba aada u baxsanaysa oo taaj ilaahi subxaana watacala maalinta qiyaamada uu kuu xidhi doono ayaad ku helaysaa marka faa-iida ayuu leeyahay marka ilmihii markaad tarbiyeyso waxaynu soo tilmaanay inay waajib tahay tarbiyadda hanuun baa markaa la doonaya qofki yacni inuu ilaahay u baryo ubadkiisa in ilaahay hanuuniyo hanuunkuna waa 2 qaybood mid waa mid inaad adiga xaqi iyo dariiqi toosna aad tusto oo u cadayso midna waxa weeye waa hidaayatu tawfiiq oo qalbiga qofka in iimaan iyo khayr iyo qalbiga lagu ilhaamiyo ilaahay subxaanahu watacaala marka hidaayatu tawfiiq ilaahay baa la gaar ah ciddu doono ilaahay hanuuniya qalbigana u geliya ilaa nabi nuux ba wiilkiisii nabi nuux isagoo ku dadaalay wiilkiisii ba haddana wiilkiisii kufri uu ku dhintay iyo markaas gaalnimo nabi ibraahimna aabihii isagoo ku dadaalay oo khayrkii wanaagga la jecla ba haddana aabihii ilaahay wuxuu u qadaray inuu aabihii gaalnimo uu ku dhinto marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu aalib waxa uu jeclaa inuu hanuuno markaasaa ilaahay wuxuu yidhi innaka laa tahdii man axbabta ciddaad adigu jeceshahay ma hanuunin kartid walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa cidduu doono hanuuninay marka hanuunka qalbiga ilaahay baa iska leh oo cidduu doono waafajinaya laakiin hidaayatu dilaala la yidhaahdo adiga waxaa lagaa rabaa inaad xaqii u cadayso oo aada barto taasaa lagaa rabaa markaas hanuunkan kale inaad ilaahay uga barido ilaahay inuu qalbiga u geliyo markaas waxaa looga baahan yahay marka tallaabooyinka uu qofku qaadayo marka uu ubadka tarbiyeynayo awalan islaaxu nafsi naftaada waa inaad wanaajiso innaga in badan waxaad arkaysaa qofka waalidka ah ama qofka isagoo hallaysan wuxuu leeyahay waxbaan hagaajinaya waxaa loo baahan yahay marka koobaad naftaada waa inaad wanaajiso oo adigu aad tahay qof wanaagsan haddaad nin tahay iyo haddaad qof dumara tahayba oo waalidka aan ka hadlin ta labaad waxaa looga baahan yahay inuu qofka markuu isagu qof wanaagsan yahay haddana uu doorto qof wanaagsan oo lamaane ah oo nolosha la qaybsada hadday gabadh tahayna ay nin wanaagsan doorato hadduu nin yahayna uu gabadh wanaagsan oo saalixada uu doorto tallaabada saddexaad labadii qof markay is doorteen waa inuu ducaysto ninki oo inuu yidhaahdo ilaahayow khayrka aad ku abuurtay iyo khayrka ay wadato baan allow ku weydiisanaya sharka aad ku abuurtay sharkay wadataan allow kaa maangeliya isla markaana waxaa muhiima oo dadku inta badan ay ka tagaan ubadka marka ay waalidku is arkayaan ama jimaacu uu imaanayo waa inay labada waalid ay ducaystaan oo marka hore soo weyse qaataan 2 ragcadood sunna ay tukadaan isla markaana ducadii ay akhristaan kabacdi ay jimaac ay sameeyaan rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilmahaas haddii labada waalid marka ay jimaac sameynayaan ay ducaystaan ilmaha haddii habeenka ilma calool galo wax shaydaan oo dhibaya ma jirto diintiisana shaydaan kama dhibayo badankiisa caafimaadkiisa shaydaan ma dhibayo waa kaas ilaa shaydaanka wuxuu la wadaagayaa qofka cuntadii buu la wadaagayaa cabitaankii buu la wadaagayaa xaaskii buu kula wadaagaya marka waxaa loo baahan yahay ducadaasna cinda aljimaac jimaac iyo galmada markay tahay in la ducaysto inkastoo dadka inta badan ama aanay ducada aqoon ama aanay xasuusaninba oo cuntadii xitaa marka la cunayo bismillaahi dadka qayb baaba ilaawo iskaba dhaaf xaaladaasna waa kasii duwan tahay ta kale oo looga baahan yahay waxa weeyaan qofka dumar markay uurka leedahay in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo shaqada dhibka badan ragga qaarkood waxa dhici karta hooyadii iyadoo uur leh bay shaqo adag bay u dhiibayaan way ku dhibtoonaysaa marka maadaama ay dhibtooteena dhibkii wuxuu imanayaa ilmihii yaraa dhib baa soo gaadhay ilaa waa 2 nafood oo iskor saaran marka waxaa loo baahan yahay hooyadu markay uurka leedahay in la xanaaneeyo oo la daryeelo shaqo adagna aan loo dhiibin
takale waxa loo baahan yahay hooyada in laga ilaaliyo yani sigaarka iyo mukhadaraadka iyo waxyaabaha la midka ilaa hooyooyinka qaar waxaad arkaysaa iyadoo uur leh bay waxay isticmaalaysaa sigaar ama qaad ama waxyaabaha maandooriyaha ah isla markaa ilmihii yaraa isagoo yar buu uurkii ku qaadanaya ilmihii hadhowta wuxuu dhalanayaa isagoo la qabsaday maandooriyihii iyo wixii oo u baahan inuu halkaas kasii wato marka waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo hooyooyinka shaqada dhibka badan in laga ilaaliyo nafaqa darada in la nafaqeeyo in laga ilaaliyo maandooriyaha iyo wixii la midka ah in laga ilaaliyo daawooyinkan dhasha tirtiraya ama dumarka inta badan qaarkood ay isticmaalaan oo dhahaan daawo aanan dhalayn ama dadka isdura matalan 3 bilood isdura ama daawooyinkaasna in dumarka laga ilaaliyo caafimaad ahaanna dhibaato badan bay u keensanaysa waxaa looga baahan yahay marka waalidkii haddii loo dhalo inuu ku farxo wixii ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala qofkaa kuu dhashay hadduu yahay gabadh inaad ku farxdo hadduu wiil yahayna aad ku farxdo aadan midna u caroonin dadka inta badan waxaa dhacda ragga inay u xanaaqaan markay gabadh ay u dhalato gabadhan ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baa ku siiyey gabadhaana kasii faa-iido badan wiilka oo nafciga aakhiriya adduunba sacaadada liibaanta aakhiriya adduunba gabadha ayaa ka faa-iido badan oo rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam qofkii 2 gabdhood beelaya oo maaragtay hagaajinaya oo waxbaraya ilaa ay qaan gaaraan anigii qofkaasi saasaan isku nahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada ka haatayni 2 farood intay isu jiraan jannada igula rafiiqayaa bi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkii 2 gabdhood ilaahay siiyey oo 2 gabdhood si fiican u barbaariya oo diinta bara oo beela rasuulka maciisu ahaanaya maxaa ka qiimo badan marka waa darajo aad u weyn marka taas marka waxaanu arkaynaa gabadhu inay qiimo badan tahay in la koriyana rasuulka lagula rafiiqaya calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaana watacaala qur-aankii aayaddeenu hadda soo akhriyayna alle wuxuu yidhi yahabu liman yashaau inaathan dumarkiiba alle soo hormariyey wiilashiina gadaal baa la mariyey horumarintaas marka waxay keenaysaa gabdhaha inay ka baraka badan yihiin oo ka khayr badan yihiin oo aakhiri adduunba liibaantooda ay markaa ka badan tahay markaa tan wiilasha marka gabdhaha markaa in markaa lagu farxo wiili gabadhba kii markaa ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyey inaad ku farxdo ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo laga rabaa ilmaha markuu dhasho in lagu aadaamo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasan ama xusein mid ka mid a markii faadimo ay dhashay rasuulkaaba ku aadaamay calayhi salaatu wasalaam marka waa in dhegta midigna looga aadaamo dhegta bidixna markaas looga aqiimo ilmihii markuu dhasho ilmihii inaad ku farxdo waxaa kaloo lagaga baahan yahay ilmaha marka uu kuu dhasho sujuudu shukri inaad la timaado oo ilaahay subxaana watacaala u sujuuddo sujuud aad ugu mahad celinaysid sujuudu shukri iyo sujuudu tilaawina waa isku mid isku si baa maaragtay loola imanaya hal xabo sujuuda un weeyaan baad la imanaysa waxaa kaloo looga baahan yahay qofka marka ilmihii u dhasho in la taxniik lagu sameeyo ama canqarin oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waagii uu rasuulku noolaa calayhi salaatu wasalaam xilligii saxaabada iyo rasuulka ilmaha markuu dhasho saxaabadu waxay u keeni jireen rasuulka timir iyo wax lamidana way soo qaadi jireen rasuulka intuu dhabta ku qabto oo timirta u calaaliyo waa afka u gelin jiray marka oo dhabxaniga ugu marmarin jiray baraka iyo khayrna ugu ducayn jiray marka waxaa loo baahan yahay ilmaha yar shayga ugu horeeya marka uu dhasho in ama timir ama malab qof khayr iyo wanaag lagu tuhmeeyo inta loo geeyo oo carabka ama dhabxaniga u marmariyo una duceeyo markaas waxaa kaloo loo baahan yahay ikhtiyaaru ismi alxasan in magac wanaagsan loo sameeyo ilmaha oo magac xun haddaad u samayso magacaasi noloshiisii qeyb buu ku yeelanaya marka magac wanaagsan inaad u doortid inaad markaa wanqal u samaysid maalinta 7aad ama kabacdiba aad u samaysid oo gabadhii 1 neef baa la qalayaa wiilkiina 2 neef ayaad u qalaysa isla markaana waa in la gudo ilmihii inaad guddo waxaa kaloo loo baahan yahay ilmihii in la nuujiyo waxaana uu ogaanaya qofku ilmahaas uu korinayo oo barbaarinayo diinta uu ku barbaarinayo inuu ilaahay subxaana watacaala ajar iyo xasanaadna uu ka siinayo oo weliba gabdhaha ay noqonayaan albanaatu sidruka min annaari jahannam gabdhaha waxay noqonayaan astur bay kaaga noqonayaan naarta jahannama oo ilaahay baa subxaana watacaala naarta kaaga badbaadinaya caruurta aad korinaysid iyo ubadkaas gaar ahaan gabdhaha oo xadiis gaara maaragtay ay kusoo aroortay guud ahaana wiilal iyo gabdhaba kii aad tarbiyeyso khayrkii wanaag ku tarbiyeyso janno ayuu sabab kugu noqonayaa jannada ku gasho marka waxaa loo baahan yahay in magac wanaagsan loo bixiyo ilmaha in markaa ilmihii la gudo ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ilmihii in la nuujiyo oo hooyadu ay nuujiso nuugmada hooyadu ay nuujinayso 2 sano ilaahi subxana wataala qur-aanka wuxuu noogu tilmaamay xawleyni kaamileyn 2 sano oo kaamila in la nuujiyo ama
وفصاله يعني وحمله وفصاله 30 شهرا ilmi inta la nuujinay iyo inta uurka lagu siday 30 bilood buu alla ku tilmaamay marka ilmi hadduu 6 bilood ku dhasho 30 bilood marka laga jaro 6 bilood waa 24 bilood waa 2 sano oo nuugma bay noqonaysaa hadduu 9 bilood ku dhashana 2 sano waxay noqonaysaa sanad iyo xoogaa bay noqonaysaa in la nuujiyo marka caanaha nuugmada ayaa kana faa'iido badan isla markaana ilmihi saameyn xagga caafimaadkiisa iyo xagga caqligiisa koritaankiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa rasuulku waliba calayhi salaatu wasalaam waxa uu diiday ilmaha inay nuujiso naag doqona in ilmaha loo geeyo oo naag doqona iyo nuujin buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilmaha marka maadaama laga reebay naag doqona inay nuujiso haddii la dhaho ka waran ilmihii hooyana iyo nuujin naag kaloo doqonana iyo nuujin qalab iyo musaasad keliya lagu nuujiyo ilmihii muxuu noqonayaa marka hadha waxaa dhici karta xitaa tarbiyadiisii akhlaaqdiisii koritaankiisii in waxyaaba badan ay ka khaldamaan marka ilmihii waana sida maanta jirta oo waalid badan ilaa waalidka xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a inay gabadhu ilmaheeda ay nuujiso oo koriso xuquuqdii markaa markay ka tagtay iyadana waxaa imanaysa inuu berri caasi ku noqdo markaa ilmihii uu ku noqdo marka dabeecadana isbedel bay ku yeelanaysaa bay leeyihiin culimadu nuugmadaasi dabeecada qofka iyo koritaanka qofka isbedel bay ku keenaysaa dhakhaatiirtana inta badan waa ku yidhahdeen nuugmada hooyadu aad bay ugu fiican tahay ugu yaraan 6 bilood hore ama waqti ka mid waxaa loo baahan yahay qofku markuu ilmaha tarbiyanayo inuu ilaahay baryo oo ilaahay tarbiyada carruurta uu la kaashado rabbi subxaanahu watacaala waxaa loo baahan yahay qofku waalidka ama ilmaha tarbiyanaya habaarka carruurta inuu ka ilaaliyo innaga inta badan habaarka inagu badan rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam naftiina habaarina awlaadiina carruurtiina habaarina maalkiinana habaarina si aydan u waafaqin saacad ay ducadu mustajaab tahay oo ilaahay intuu ducada habaarka idinka aqbalo markaa wixii idinku dhacaan markaa si aad taa uga badbaadaan waa inaad iska ilaalisaan habaarka markaas oo habaarkii marka uu qofku uu ka fogaado oo iska ilaaliyo ubadkaaga waa inaad u ducayso habaarkana aad iska jirto marka qofka wax tarbiyanaya waxaa laga rabaa ubadkiisa inuu ka dhigo ubad ilaahay jecel oo ilaahay u jeclaysiiyo subxaanahu watacaala rasuulka maaragtay uu ubadkiisa u jeclaysiiyo waxaa looga baahan yahay inuu saxaabada jeclaysiiyo ubadkiisa siirada nabiga inuu baro calayhi salaatu wasalaam dhaqankii akhlaaqdii nabiga inuu baro ayaa arrimahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanaya ilmihii in tarbiya wanaagsan uu helo marka waxaa kaloo waalidka looga baahan yahay ilmihiisa inuu ilaahay dambi dhaaf u weydiiyo waxaa kaloo waalidka laga rabaa ama qofka wax tarbiyanaya in uu isagu yahay qof wanaagsan oo adiga markaad qof wanaagsan tahay ilaahay subxaanahu watacaala ubadkaagana waa wanaajinaya waxaa kale oo qofka looga baahan yahay in ilmaha la baro inta uu yar yahay inuu midigta wax ku qaato midigta wixii wanaagsan ku bixiyo wixii qashin iyo wixii xun bidixda uu isticmaalo salaamta inuu dadka salaamo inuu adaabtii hurdada si u seexan lahaa siduu wax u cuni lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wiil yar oo wax la cunaya baa wuxuu ku yidhi wiil yahow wuxuu wiilka yar marba dhan buu xeedhada ka cunaya cuntada carruurta iyo xitaa dadka waaweyn qayb baa saa u dhaqanto cuntada marka lasoo dhigo qayb baa waxay raadsanayaan xabadda baradhada ama xabadda hilibka ama waxaas mar meel ka qaadanaya rasuulku markaa wiilka yar wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wiil yahow midigta ku cun qaybta ku xigtana xagga ku xigtana ka cun midigtaadana ku cun marka bismillaahina dhe bisinka u qabo marka waxaa loo baa ilmaha intuu yar yahay in la baro nidaamka cuntada u cuni lahaa inuu midigta ku cuno inuu meesha isaga xigta uu ka cuno inuu bisinka cuntadii u qabto inuu gamcaha soo dhaqdo in la baro nidaamkaas marka uu hindhiso in la baro inuu dhaho alxamdulilah markuu seexanayo aadaabtii ducadii in la baro in marka dhaqan looga dhigo khayrka iyo wanaagaas iyo maaragtay inuu cibaadaysto oo ku cibaadaysto maaragtay aadaabta sharciga ah inta hadba karaankiisa inuu la yimaado waxaa loo baahan yahay carruurta qofku marka uu tarbiyanayo inuu carruurta uu la ciyaaro marmar inuu carruurta marmar la kaftamo inuu marka carruurta u noqdo ku dayasho wanaagsan inaad u noqoto qudwa xasana yacni qof wanaagsan oo ay kaga dayanayaan khayrka iyo wanaagga inaad noqoto carruurta yar waalidka waxaa looga baahan yahay ama qofka tarbiyanaya khayrka inay u laqimaan khayrka inay baraan dhaqanka wanaagsan kelimadaha wanaagsan hadalka wanaagsan inay baraan waxaa kaloo looga baahan yahay qofka wax tarbiyanaya markuu carruurta waaninayo ama wacdinayo wacdi wanaagsan iyo hadal wanaagsan inuu ku wacdiyo oo luqmaan ulxakiim wiilkiisa waa ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow yacni waa naxariis iyo wanaag bay tusinaysaa wiilkaygiiyow ilaahay shirki haw samayn wiilkaygiiyow salaada tuko wiilka khayrka marka inaad saa u farto kibirka ka tag hooyo aabe sida hadal wanaagsan inaad tiraahdo oo wacdi wanaagsan iyo si xikmad ay ku jirto inaad wax ugu sheegto marka
oo qaylo iyo habaar iyo cay aadan markaa ku waxayn waalidka qaarkood markay ilmaha wax u sheegayaan way habaarayaan way la dagaalayaan taas lama ogola marka qaylo iyo habaar iyo cay waxa ma soo kordhinayso waxaa loo baahan yahay waalidku inuu ilaaliyo guriga gudihiisa guriga markaad ku guda jirto carruurta waxay sameynayaan waa inaad ka warhayso oo aad ilaalinaysa guriga carruurta markay ka maqan yihiin ficilkooda iyo hadalkooda iyo waxay sameynayaan dhaqdhaqaaqooda waa inaad carruurtaada la socoto waa inaad ogaato carruurtaada cidda ay saaxiibka leeyihiin ma dad xunbaa ma dad fiicanba waa inaad carruurtaada u yeesho daris wanaagsan waa inaad carruurtaada u yeesho saaxiibo wanaagsan waa inaad carruurtaada waxaa loo baahan yahay qofka wax tarbeynaya inuu mararka qaar ilmihii aada ciqaabto ciqaab weyn oo aan dhibaato weyn u geysanayn marmarka qaarna inaad abaal mariso talan haddii wax khalad sameeyo inaad marmar tiraahdo maanta qadar ma lihid qadada u diido ama biyaha u diido ama shay uu jeclaa aad marka wuxuun inaad ku ciqaabto marka haddii ay garaacis xitaa noqoto si tartiiba inaad u garaacdo aadan wejiga iyo meel halisa aadan waxba kaga dhufan wejiga in laga garaaco ma banaano qofka muslimka ah wejigana waxba ha kaga dhufan nabar weyn oo wax yeelayaan ha u geysan marka garaacis yar oo aan waxba yeelayn waa inaad garaacdo mararka qaarna aad abaal mariso markuu khayr iyo wanaag uu sameeyo waxaa loo baahanya waalidka ilmaha tarbeynaya inuu xalaasha kasbado oo qofka waalidka hadduu xaaraan cun yahay ubadkiisana waa xumaanaya waxaa la rabaa inuu xalaal cun yahay waalidka shay xalaal carruurtiisa uu ku koriyo si ilaahayna subxaana watacaala ducada uga aqbalo ilaa rasuulku wuxuu inoo sheegay alayhi salaatu wasalaam nin safara oo boor iyo basaas ay ka muuqato oo ilaahay bariyo gamaha kor u taagaya markaasaa rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam ninkaa waxa uu cunay waa xaaraam dharka wuxuu dhan waa xaaraan waxa uu cabay waa xaaraam wixii lagu soo koriyayna waa xaaraam sidee looga ajiibay baryada marka lagama ajiibiyo wey marka maalka xaaraamta wuxuu kasbayaa ubadkiina inuu kaa xumaado adigana baryada ilaahay uu kaa aqbali waayo waxaa loo baahanya waalidiinta inay xalaasha ku dadaalaan oo ribada iyo xaaraamta iyo dulmiga iyo waxyaabahaas ay iska ilaaliyaan markaas oo ubadkooda kasab xalaal ay ku quudiyaan taasina raad weyn bay waxay ku yeelanaysaa nolosha ilmaha iyo barbaarintiisa maanta ubad badan oo la kari leeyahay oo dariskii dhibaya oo muslimiintii dhibaya inta badan waxay dhici karta in xaaraam lagu soo koriyey marka la iska ilaaliyo marka taasaa laga taxadiro waxaa kaloo loo baahan yahay qofka wax tarbeynaya inuu camalka saalixa badiyo oo weliba carruurta hortooda uu ku sameeyo camal saalixa marka waa inuu qofku ka digtoonaado hadalkiisa iyo ficilkiisu inay iskhilaafaan uu taana uu iska ilaaliyo waxaa loo baahanya carruurta intay yaryar yihiin in dhaqan looga dhigo oo lagu tababaro daacada ilaahay iyo cibaadaadka in lagu tababaro oo rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam carruurtiina amra salaada markay 7 jir yihiin salaada amra marka ay 10 jir gaadhaan salaada ku garaaca marka hadday tukan waayaan marka cibaadaadka waa lagu tababaray salaadii soonkii sadaqadii salaatul leylka hadday tahay soonkii maaragtay waajibka hadday tahay hadday qayba ka soomi karaan waxaa la rabaa in cibaadaadka iyo taacada iyo khayrka wanaagga in carruurtii dhaqan looga dhigo oo lagu tababaro ayaa loo baahanya waxaa kaloo la rabaa carruurtu marka hurdada in la kala kaxeeyo markay 10 jir gaadhaan wiilasha gabdhaha ku walaalaha in qaarba meel la seexiyo aan wiilasha gabdhihii isku dhex qasin marka in wiilashana gaar loo seexiyo gabdhihiina gaar loo seexiyo ayaa loo baahan yahay waxa kale oo laga rabaa qofka marka wax tarbeynaya inuu carruurta baro adayg iyo raganimo u baro marka oo ilmaha yar markasta uunu ka dhigin ilmo jilicsan ilmo maaragtay markuu ooyaba wax lagu aamusinayo ama dhinac la iska siinayo ilmaha adayga waa in la baro marka inta uu yaryahay inuu adkaysan karo mararka qaar in la baro marka inuu haraadka u adkaysto dugsiga iyo waxbarashada iskoolka adaygaa loo baahan yahay waxaa kaloo laga rabaa qofka maaragtay wax tarbeynaya carruurtiisa inaanu ku kalifin alaab culus ama shaqo aanay qaban karin yacni wax awoodooda ka badan waa inaadan carruurta u dhiibin dadka qaarna saasay u galaan oo hawl adag ama shaqo adag bay u dhiibaan ilmaha marka waxaa la wuu curdan dhadhay baa la dhaha waa la curdan dhadhiyey isagoo curdan oo soo bixi lahaa baa hoos loogu celiyey marka yacni dhibaato iyo culays baa la saaray marka ilmaha lama ogola wax awoodiisa ka baxsan in la saaro waxaa loo baahan yahay qofka wax tarbeynaya inuu carruurta dhiirigeliyo oo khayrka ku dhiirigeliyo salaada ku dhiirigeliyo soonka ku dhiirigeliyo sadaqada ku dhiirigeliyo inuu dhiirigeliyo oo mararka qaarna hadiyad uu siiyo hadal wanaagsan uu ku dhaho rasuulka alayhi salaatu wasalaam saxaabada xitaa kuwii da-da yaraa wuu dhiirigelin jiray mararka qaar idan buuba weydiisan jiray yacni cabdullaahi bin cabbaas isagoo midigta rasuulka ka fadhiya calayhi salaatu wasalaam rasuulkana dhanka bidix ay ka fadhiyaan saxaabo waaweyn oo odayaala rasuulka cabitaan baa loo keenay cabitaankii rasuulka marka loo keenay calayhi salaatu wasalaam
markuu cabay baa wuxuu ku yidhi cabdullaahi may idmaysaa inaan odayaashan siiyo cabitaanka markaas maya uma idmayo waxuu ilaahay rasuulkiisii siinayo cid kale u doori maayo aniga sidii baa markaa loo siiyey marka xitaa carruurta marka qaar in idan la weydiiyo ayaa markaas loo baahan yahay marka waxaa kaloo loo baahan yahay carruurta yaryar in markaa hadiyad la siiyo mararka qaar rasuulku calayhi salaatu salaam cabdullaahi bin cabaas wuxuu odhan jiray ilaahay waxaad bartaa ilaahu diinta fahamsiiya qur-aankana bar marka xikmada iyo tafsiirka alloo bar iyo sunnada bar markaasaa turjumaan qur-aan baaba loo bixiyay cabdullaahi saxaabada markaa rasuulku waa dhiirigelin jiray calayhi salaatu wasalaam iyo dadka da-yarta ah oo dhalinyarada buu dhiirigelin jiray marka waalidkana saas oo kalea looga baahan yahay ama qofka wax tarbeynaya waxaa kaloo looga baahan yahay qofka wax tarbeynaya guriga inuu ka nadiifiyo waxyaabaha muusiga heesta sawirada qaaqaawan waxyaabaha maaragtay haleynaya oo dhan alaatu lahwiga la yidhahdo inuu ka ilaaliyo oo gurigii hadduu yahay guri hees mar walba ka baxayso guri hadduu yahay muusig iyo hees iyo balaayo ay ka baxayso sawiro qaawani ay yaalin waa guri fasahaad buu noqonaya marka malaa-igtuna ma soo gelayso oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar gurigiisa uu daah ku xidhnaa sawiro iyo wax leh malku jibriil way soo geli waayeen marka markaasaa rasuulka marka malku jibriil weydiiyey baa malku jibriil wuxuu yidhi anagu ma galno guri ay sawiro yaalin iyo guri ay uu ku xidhan yahay markaas saa darteed waxaa la rabaa guriga in laga nadiifiyo waxyaabahaas akhlaaqda ama tarbiyada haleynaya oo muusiga iyo heesaha iyo waxyaabaha maaragtay qalabkaas aan fiicnayn waxyaabahaas oo dhan in laga nadiifiyo guriga si ilmaha kugu hagaago waxaa looga baahan yahay qofka wax tarbeynaya gurigiisa inuu adkaarta ku akriyo adkaarta qur-aanka adkaarta axaadiista inuu ku akriyo qur-aanka inuu ku akriyo oo rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam guriga lagu akriyo suuratulbaqara shaydaanku uu ka carar marka guriga suuratulbaqara in lagu akriyo qofku inuu ku tukado rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam guryihiina ka dhigana sida qabri oo kale ee guryaha ku tukada ilaa qubuurta waa meel aan lagu tukan karin weeyaan waxaa laga rabaa qofkaas qur-aanka inuu baro ilmaha yar waxaa laga rabaa axaadiista inuu baro waxaa laga rabaa madrasad wanaagsan inuu ilmaha geysto oo madrasadahana qeyb bay ka qaataa ilmaha wanaagiisa marka madrasad wanaagsan oo dad wanaagsan dhigtaan waa ina ilmahaagi geyso oo madrasad wanaagsan aada u doorto marka waxaa laga rabaa qofka waalidka macallin wanaagsan inuu ilmihiisa u dooro oo macallinkiiba hadduu khariban yahay dee ilmahaagiina ilmo khariban buu noqonaya marka macallin wanaagsan oo khayrka iyo nasteexada iyo wanaagga la jecel inaad markaa aada macallin uga dhigto laakiin haddaad mid xaasida uga dhigto macallin ama mid khaa-in ah ama mid inkaar qaba dee ilmahaagiina inkaar qabo soo baxaya marka waxaa loo baahanya ilmihii in loo sameeyo saaxiib wanaagsan waxaa looga baahanya qofka wax tarbeynaya inuu ku daydo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku carruurta waa dhunkan jiray waa shumin jiray carruurta rasuulka waa la kaftami jiray mararka qaar wuu ciyaarsiin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam carruurta yar rasuulku waa salaami jiray innagana tii baa layna ka rabaa waalidka carruurta rasuulku madaxuu u salaaxi jiray waa inaan carruurta salaano oo dhunkano oo carruurta si wanaagsan u qaabilno oo soo dhaweyno oo u ducayno oo maaragtay wax u sheegno oo mararka qaar waalidku inay carruurta la sheekaystaan ayaa looga baahanya waxaa laga rabaa qofka marka wax tarbeynaya ama waalidka inuu aadaabta aasaasiga ah inuu mar walba baro ilmaha yar inuu baro inuu kula dadaalo inuu wax barto horta cilmiga qur-aanka inuu xifdisiiyo sunnada rasuulka inuu baro arkaanul islaamka inuu baro arkaanul iimaan inuu baro oo marka isla markaana uu ku itixaamo oo dhaho arkaanul islaam waa meeqa ilmihii dhaho waa 5 arkaanul iimaan waa meeqa waa 6 ها إلا برويا أشهد أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إن أدبرت علمه حفظ سيسو أترى أركان الإيمان تري كون أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خيره وشره إن هذا أركان ويرس أركان الإيمان أركان الإسلام إن أدبرت والدك حلوة بها هي إنه عروتك إلى اليوم أخلاق حن هي أخلاق اللي ذتها هي أخلاق الخاصة وإنه علمه وكإلى اليوم أي والدك لو بها والدك حلوة بها يقف واحد تربية وبدك يستمرك إنه وحيابه مباحة وعيارة بنان إنه برا أما عيارة اسمه عيارسية عيارة بنان وشريعة يوقشها وحلوة بها هي والدك قرية إنا نسوق اللي تضحن حن قرية وإنا إيمان إلا ضد ونكسن مويه ضد ونكسن بس وإنا قرية كانت ضدك حن عاد كإلى لسه قرية وإنا تكإلى لسه المها وين إنا هالمانتو ضدك قار المير مركو رشوا كاسم بيت حنانية كوي كوا وينا وي إلا وين مرك كحل رأي المها إن هذا عدالة سميسو كويني كيربا إن عدالة سميسو مدول بحق سنة سيسو
waxaa looga baahan yahay qofka wax tarbeynaya wax kastoo ilmahaagu rabo ha siinin waxyaabo badan baa jira oo carruurta rabaan oo khaldan wixii khaldan waa inaa u diido ilmahaaga waa inuu qofku tusaale uga dhigo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilmaha uu dhaho rasuulka ku dayo carruurta maaragta in loo sheego caqiidada inay ilaahay baryaan inay ilaahay kaashadaan idaa sa'alta fas'al illah haddaad cid baryayso ilaahay keligii bari waa in ilmaha la yidhaahdo haddaad cid wax weydiisanayso ilaahay weydiiso waa in markaa carruurtii qur-aan lagu akriyo oo aayaadka maaragtay xirsi xidhka ah aayaadka isha laga akhristo aayaadka sixirka aayaadka jinka waa in qur-aan laysi saaro oo carruurtii la saaro oo waalidka maaragtay isu saaro oo gurigii maaragtay la saaro aayaadka maaragtay lagu akriyo in carruurta la baro inay go-aan qaadan karaan go-aan qaadashada in la baro carruurta mararka qaar inuu waalidku la tashado arrimaha qaarkood uu kala tashado carruurta in la baro sirta in la xafido oo qofku uu sir yeesho sirtiisa xafido ballanka inuu ilaaliyo in la baro in markaa dhaqankii saxaabada iyo siiradii rasuulka ay carruurta in la baro calayhi salaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay markaa waalidka ilmaha qaar baa aada u jecel waalidka haddaad jeceshahay jacaylkaaga yuu keenin inaad ilmihii tarbeyn weydo adigoo ilmihii jecel haddana waa inaad edbiso oo si fiican marka edabtiisa aada ugu dadaasho waxaa loo baahan yahay carruurta inaad labiska ay xiranayaan ka kaantaroosho uu noqdo labis islaami ah oo gabdha hadday yihiin gabdhihii in xijaab loo xiro wiilal hadday yihiin si wanaagsan maaragtay u labistaan dhaqankii saxaabada ee rasuulka ay ku daydaan calayhi salaatu wasalaam in laga ilaaliyo carruurta inay shabahaan xayawaanka iyo tashabuhu bilkufaar in laga ilaaliyo carruurtaadu inay isu ekaysiiyaan dadka gaalada ah dadka cawaanka ah dadka waalwaalan xayawaanka inay isu ekaysiiyaan lama ogolo inay shabahaan waxaa la rabaa tashabuha inaad carruurta aad ka ilaaliso waxaa loo baahan yahay hooyada iyo aabbo markay wada hadlayaan muranka iyo dooda iyo qaylada inaanay carruurta maqashin oo carruurta hortooda aanay ku caytamin oo muran iyo dagaal aanay ku bilaabin ee carruurta meel ka baxsan ay ku wada hadlaan iyaguna waxaa la rabaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wanaagga ay isfaraan hooyadii aabba waxaa loo baahan yahay qofka wax tarbeynaya waxaa laga rabaa inuu isagu waalidkiisa baari u yahay si ilmahaaga uu baari kugu noqdo haddii aad adigu waalidka aadan baari u ahayn ilmahaagina caasiba kugu noqonaya oo baari kuma noqon haddaad adigu waalidkaa baari u tahayna baarinimadaas waxay keenaysaa in ubadkaagina ilaahay subxaana watacaala uu baari kaaga dhigo ugu dambeyn waxaan kusoo koobaynaa inuu qofku noqdo qof ilaahay ka cabsanaya ehelkiisa uu naar ka ilaalinayo naftiisa uu u turayo akhlaaqda xunxun uu iska ilaalinayo khayrkii wanaagga maaragtay inuu ubadkiisa u dardaarmo ilaahayna uu baryo insha allah wabillahi tawfiiq الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله